dhismaha cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi u daafuray wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Somaliland ayaa iskugu jiray dhismaha masaajid weyn oo wasaaraddaasi ay leedahay iyo xarunta guud ee wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay ku hawlgali doonto oo si qurux badan loo bineeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa goobgoob u dul istaagay qaybaha kala duwan ee xarunta wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay ka kooban tahay waxaana u xog waramay madaxda wasaaradda gacanta ku haysa inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu iba furayay dhismaha cusub ee loo bineeyay wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo madasha goobjoog ka ahaa wasiiro culimo awdiin ganacsato saraakiil ka socday hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee wasaaradda la shaqeeya iyo marti sharaf kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay cid kasta oo qayb ka ahayd hirgelinta dhismaha quruxda badan ee loo yagleelay wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaanu madaxweynuhu tilmaamay doorka culimo awdiinta ee horumarinta bulshada culimadu maanta waa badan tahay aqoontooduna way badan tahay waxaan rajaynaynaa inay ururiyaan afkaarta culimada inay wasaaraddu awood u hesho inaanu khilaaf culimo u weyn naga dhex dilaacin waan sii xoojinayaa qodobka kale isna waxa weeye in la mideeyo eedaanka bisha Ramadaan kaafurka in la mideeyo iyo ka arooriyo oo ilaa 4 aroornimo ilaa 5 ay jiraan eedaamo badan muddo saacada oo tooso mikrofoonadu aad u dalacan diinta waa in la aroosaa waa in shaacirka diinta kor loo qaadaa laakiin waa in aan keenin dhibaato iyo diraar dad bukaa jira dad waayeela jira marka in la isu qiyaaso oo eedaankii subaxda mideeyo loo ururiyo marka in labadiiba ay ka shaqeyso wasaaradda oo adduunyadiina qofkii bini'aadmiga ahaa noloshiisii ay ka hawlgasho waxtarkeedii iyo wanaajinteedii tii aakhirana u diyaariso oo qofka labadaaba ay diinta ku hogaamiso marka inaynu halkaa xoog badan saaro oo adduunyadii qofkii marka hore isagii la diyaariyo si uu cibaadadiisii iyo waxtarkiisii u guto tii aakhirana ugu diyaar garoobo taana inuu xoog saaro weeye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa yiri wasaaradda awqaaftu inay la dagaalanto qabyaaladda iyo qaadka iyo mukhaadaraadkana waa waajib koowaad markaynu eegno maanta dhibaatooyinka dalkeena ka jira waxaa soo noqnoqda oo fara badan dagaalada beelaha maanta xaaladaha jira waxaanu kaga bixi karnaa culimada hawlgasha hadday waalan tahay hadday xaqsoor tahay hadday rumusheeg tahay wixii diinta u gargaarayna waa isugu tegeynaa waayo diinta waa nolosheena iyo fi aakhiraba wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa ka warramay sooyaalka dhismaha wasaaradda diinta iyo awqaaftu uu soo maray waxaa si rasmi ah loo bilaabay dhismaha wasaaraddan sanadkii 2014 waxaana si rasmi ah ay u dhamaatay dabayaaqadii 2016 hase yeeshee waxa aan la sugaynay dhamaadka masaajidkan barakaysan ee ku yaala xarunta wasaaradda oo laba dabaq ah kaasi oo ay maalgeliyeen xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland iyo hay'adda Suudaaniga ah ee mudamada dacwa waxaan u mahadnaqaynaa sidoo kale maalqabeenka ama walaalkeen Xaaji Axmed Baxsane oo isaguna dhulka inta leeg inoogu deeqay waan ku mahadsanyahay Ilaahay ka abaaliyo mudan madaxweyne waxa wasaaradana ay u xil saaran tahay horumarinta diinta islaamka xagga barashada ku dhaqanka iyo ilaalinta anshaxa guud si loo helo muwaadin daacad oo Allah ka cabsanaya oo hawlkar ah isla markaana gudanaya hawl maalmeedkiisa isagoo diinta iyo manhajka saxda ah ku dhaqmaya haddii ay tahay caqiido hadday tahay cibaado agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Somaliland Aadan Cabdillaahi Sheekh Axmed Dhimbiil Guuleed Sheekh Maxamed Macalin Aadan ganacsate Xaaji Axmed Baxsane oo dhismaha dhulka laga hirgeliyay bixiyay ayaa iska daba maray muhiimadda uu dhismahan u leeyahay adeegyada bulshada lagu gaarsiinayo barashada diinta islaamka